السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صاحب يلقص الأوادة Somali Community College iyo casharada taxanaha inoo ahaa ee ku saabsanaa barashada luqadda Englishka iyo sidoo kale casharada ku saabsanaa waxa loo yaqaan soft skills ama life skills casharkeena maanta waa cashir English ah waana cashir dhanka grammar-ka ah waxaan soo qaadan doonaa waxa loo yaqaan waxa la yiraahdo quantifiers waxa loo yaqaan ama ereyada quantifiers-ka sida loo isticmaalo iyo sida kala duwan yihiin quantifiers are used to indicate waxa loo isticmaalaa to indicate or to show in a kutuso the amount or the quantity ereyga waxaan soo sheegnaa or dhaxda laba erey waa isku macna marka the amount or the quantity macnaheedu waa total macnaha waxa la isku dardarayo ama waxaad wax ka xisaabinayso ayaa loo isticmaalaa of something refer to by noun oo loo nisbaynayo wax ama la xisaabinayo oo loo kala waxaynayo macnaha qayb loo kala sheegayo ama iyagu dhan isku sheegayo jumla ahaan loo sheegayo ama qayb kamid loo sheegayo waxa way noun ku way they are different from numbers waxay kala duwanaan karaan number ahaan qaar badan qaar yaraan karo or something referred to by noun they are different from numbers because they indicate an approximate maxayna ku tusinaysaa approximate macnaha wax oo qiyaas ahaan oo macnaha oo hubin wax inta yihiin boqolkiiba muubtid laakiin quantify marka isticmaalayso waxa qiyaas marka qiyaas ka qaadanaysid and rather than an exact amount adoo macnaha ka wadin exact amount oo sheegayna xaqiiqada wax tirada inta ay they can group according to their use waxaan loo kala qaybiyaa according to their use mid walba iyo isticmaalkiisa koox walba iyo isticmaalkeeda ayaa loo kala qaybiyaa maxaana kamid ah all some any much enough no kuwa kale iyagana laba dhaco oo sida little a little a few ayna way iman doonaan marka intaan ayaan ku soo qaadan doonaa you can use all waxaad isticmaali kartaa all some any or enough before a plural countable noun or uncountable noun waxaa loo isticmaalaa afartan oo ah all some any enough ka hor ereyga jamca ah ee la tirin karo magaca la tirin karo ama aan la tirin karin countable noun waxa la yiraahdaa nouns that you can count magacyada aad xisaabin karto sida ka gaariyaasha wax walba oo la xisaabi karo house guriyaasha ma houses waxa la xisaabi karo laakiin uncountable nouns waxa loo isticmaalaa waxa la yiraahdaa nouns that you cannot count aad xisaabi karin sida like water biyaha biyo xisaabi kartid like soil haram xisaabi kartid so ereyadaas oo nounka ah oo u kala baxo kuwa la xisaabayo iyo kuwa la xisaabi karinba before-gooda ayaa loo isticmaalaa all some any or enough before waxaan ereyga markuu saa u qoran yahay dhinaciisa bidix ayaa la yiraahdaa before sababtoo isaga laga horqoro markii la qorayo ereyga laga horqoro markii xaanshida ku qoraysa ama computer ayaa la yiraahdaa before ereyga dhanka bidixda ka jiro so afartan erey waxaa loo isticmaalaa nounka iyo ah midka la xisaabayo midka la xisaabi karin before-giisa ayaa loo isticmaalaa okay tusaale ahaan can I have some chips hadda chips waa noun waana countable noun waa la xisaabi karaa marka before-geeda waxaa la isticmaalay some ayaa la isticmaalay marka wuxuu can I have ma heli karaa maqaaxibaad imaaday kaasaad waxaad dalbatay chips waxaa la yiraahdaa baasha fiyaasiga la yiraahdo Soomaaliya baradhada dhahaan marka la jarjaro saliidda lagu shiilo ayaa la yiraahdaa chips meelaha dawladda qaar marka loo yaqaan laga yaabo marka wuxuu can I have some chips please ma heli karaa wax yar oo baashaas chipska marka chipska waa nounka waana countable oo la xisaabi karaa waana marka some ayuu isticmaalay Sahra gabadha la yiraahdo waxay tiri give me all her money Sahra give me all her money macnaha qofka gabar kale ayaa ka wadaa marka la hadlayso waxay tiri give me see all her money lacagteeda dhan see marka ha waa pronoun waa la xisaabi karaa waa all baa qaadato marka before ha waxa galay all Ahmed never has any time to visit us Ahmed wiilka la yiraahdo never has willis ma helayo ama ma helayo macnaha waa qof mashquul badan waaye any time marka waa kana waa uncountable waa lama xisaabi karo marka any ayaa galaysa before-geeda marka waxaan soo sheegnay all some any and enough in loo isticmaalo before plural countable noun or uncountable nouns
marka wuxuu yiri Ahmed never has time. Ahmed ma hayo waqti to visit us oo nagu soo booqdo. Okay, you can use no waa la isticmaalaa before singular or plural countable or uncountable noun. No maxaa loo isticmaalaa iyada before xarafka mufradka singularga ah iyo ama pluralka ah jamca ama mufradka ah oo isna sidoo kale ah mid la tirin karo mid aan la tirin karin. Noun countable noun and uncountable noun. There was no pictures ma jiraan sawiraan of the party oo macnaha xafladana sawiraan ma jiro xaflad. There was no pictures of the party ma jiraan xafladan sawiraan ma jiraan. There is no hospital ma jiro isbitaal. Marka isbitaalka waa noun waana countable waxa la xisaabi karaa before marka noun ayaa la isticmaalaa. Marka waxaad tiri there is no hospital ma jiro isbitaal in this town magaaladan. No information has been released yet. Ma jiraan wax warbixina. No information ma jiraan wax warbixina has been released oo la soo daayay yet weli. Tusaale ahaan imtixaanka natiijada ayaa sugaysaa in la shaaciyo ama doorashada dhacday resultiga ayaa sugaysaa in la shaaciyo. markaasaa qof baad weydiisay is it any information baad ku tiri kaas waxaad tiri kaas no information ma jiraan wax warbixina has been released yet oo la soo sii daayay weli. Okay, some any much and enough are used to refer waxaa loo isticmaalaa in maxaa loo isticmaalaa a part of the item qayb ka mid ah shay'aasha laga hadlayo. tusaale ahaan will you like ma jeclaan lahayd some ice cream wax yar oo ice cream. marka somtan hadda waxay ka noqonaysaa ice cream ka qaybteeda qayb maxana iyadoo dhan ma wada rabtid marka waxaad rabtaa ma jeclaan lahayd buu yiri qayb ka mid ah. marka some is part of ice cream. will you like some ice cream ma jeclaan lahayd wax yar oo ice cream. we don't have ma hayno much success. we don't have much success ma hayno guul badan ma hayno macnaha we don't have much success macnaha guul badan ma hayno. marka success kaas waa uncountable noun much ka ayaana la isticmaalay waan social macnaha use refer to part of macnaha qayb ka mid ah ayay noqonaysaa much success macnaha success wuu jiraa laakiin ma badno. okay, I have not seen enough ma arka wax ku filan evidence oo ah macnaha evidence proof to convince to persuade and persuade waa isku macnaha ma hayo wax ugu filan oo igu soo jiidan karto ama macnaha qofka arrin ka dhacaysa persuade or convince oo ka dhacaysa. evidence macnaha proof macnaha qof baa wax ay cadeeyay waxaan proof show me evidence ama proof cadeyn si ay tusbaatay. marka wuxuu yiri I have not seen enough evidence aniga ma arko wax ku filan oo proof to convince or persuade me ama aad ugu soo macnaha aad ugu jiidato macnaha iga dhacaysa. I couldn't find any fresh milk. I couldn't find ma arki karo ama ma bataalo fridge baad furtay meesha aad aragtay marka ama dukaan baad gashay caanaad ku weysan markaas waxaad tiri I couldn't find any fresh milk at the shop ama in the fridge macnaha fresh oo meeshan kuma arko. marka fresh milk waa nounka inna waxaa loo isticmaalayaa as a quantifier. all and no refer to the whole of the item. all ayaka waxaa loo isticmaalaa iyo no shayga waxa dhan oo isticmaalaysa. tusaale all the milk caanaha dhan has been used waa la isticmaalaa caanaha dhan waa la isticmaalaa. there is no milk in the fridge ku caano ku jira marka caano dhan ay saameynaysaa qaxwa qayb kama yaalo laakiin marka waxaad tiri enough wax ku filan malaha wax baa yaalay ama xogo yar proof al qudso laakiin kuma filno. find any milk at the shop. find any fresh milk macna caano soo socon yaalan baa laga yaabaa marka waxaad tiri an fresh milk macna ma yaalan marka qayb kamid ah waaye laakiin hadda waxba ma yaalan macna wixii dhan nooc doon hada wax shayga ku abtirsado dhan haddaan all inoo isticmaashid way saameynaysaa marka waxaad tiri all the milk caana dhan ama soo hadaan macaan hada ama geeli la waxay hadaanba has been waa la isticmaalay. there is no milk in the fridge caana fridge kana wax caana ku jira malaha. okay, some is used some waxaa loo isticmaalaa in positive
sentence ama jumlada oo positive ka ah oo diidmada ahayn. I have bought some chocolate. Waxaan soo gatay wax yar oo chocolate ah. I saw some lovely shoe. Waxaan arkay wax yar oo qaybka macnaha kabo oo aad u qurux badan aad u jeclaaday. In town magaaladiis mana subaxaan. Any waxaa loo isticmaalaa excuse in negative sentence. Jumlada diidmada ayaa loo isticmaalaa. I didn't buy waxba ma gadanin any chocolate. Wax chocolate this week. Asbuucan wax chocolate aan gatay ma jirto. I haven't seen any birds. Ma arkin wax shimbir ah. In the garden today, beerta maanta wax shimbir ah kuma arkin. In question, any is used when there is no particular expectation about the answer. Some is used when the answer is expected to be positive. Any waxaa loo isticmaalaa markii ayna wax jawaab aad sugayno. Some markay jawaab ay tahay laga noqonayo inay jawaab tahay wax positive inay noqoto. Okay, tusaale ahaan, have you got any fresh bread? Ma heshay wax yar oo nooc doon ahaado fresh bread ah wax ma heshay. Any bread nooc doon ahaado ama mid qamadi laga sameeyo ama wax kale laga sameeyo wax bread oo rooti ma heshay. Has Paul had any news about the accident? Paul wax oo in akhbaar ah wax akhbaar haba nooc doon ahaatee oo ku saabsan shilka uu hayaa. Will you like some cake, Aisha? Aisha ma jeclaan lahayd wax yar oo cake ah? Ma jeclaan lahayd. Okay. The use of no with there is or are is in very common. Tusaale ahaan, there was no post today. Maanta ma jirto wax post ah. Macnaha wax la soo daabacay post ama posta maanta ma jirto. There are no jobs. Ma jiro wax shaqo available oo macnaha maanta la heli karo. Electricians at the moment waqtigan wax ku saabsan shaqo oo electricians macnaha korontada sameeyaan oo la heli karo malaha. No jobs macnaha total shaqada way saameysay oo ku saabsaneed electrical macnaha. Okay, casharkeena xiga haduu Ilaahay karana waxaan soo qaadan doonaa waxa la yiraahdo half, double and both. Marka waxaan rajeynayaa inaad quantify-ga inaad fahanteen. Okay, casharkan hoosna English oo ninka la turjumayo channelka videoyada aan soo geliyo macnaha channel qaar qoraalaan soo geliyaa qaarna only videos. Markaas videogaas kana waad ka daawan kartaan. waan salaamayaa. Waxaan rajeynayaa casharadana in xayaat ka dambeeyay taxana inoo noqon doonaan. casharkan kan ku xigi doona wuxuu noqon doonaa conversation wada sheekaysi. waan salaamayaa. channelkan subscribe hala saaro. dambalkan hala furto. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.